magacaygu waa Kalaash waxaan ahay cawaan su'aashaydu waa maxay muslimiintu u rumaysan yihiin in Ciise calayhi salaam la dhalay aabba la'aan iyadoo quraanku leeyahay iyadoo alla leeyahay alla waa ka bilaabay abuuridda samaawaadka iyo dhulalka sidee buu ugu ahaanayaa wiil isagoo aan xaas lahayn walaalka su'aal buu na weydiiyay oo ah in muslimiintu rumaysan yihiin in Ciise calayhi salaam la dhalay aabba la'aan iyadoo quraankuna leeyahay sidee alla ugu ahaanayaa wiil isagoo aan xaas lahayn arinta ku saabsan dhalashada mucjisnimada Ciise calayhi salaam alla wuxuu ku leeyahay suuratu Aali Cimraan suurada 3 aayada 47 markii Maryam ay dhahday nabadgelyo Allah dusheeda yeelay rabbiyo wiil igu ahaanaya iyadoo qofna itaaba jawaabta xagga alla ay ka imaatay iyadoo Jibriil loo soo dhigay idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun hadii alle arin xukmiyo ku yiraahdo ahaw wuuna ahaada isla sidoo kale alla wuxuu ku leeyahay suuratu Aali Cimraan suurada 3 aayada 9 alla wuxuu leeyahay inna mathala Ciise 'inda Allah kamathali Aadam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun tusaalaha Ciise ee alla agtiisa waa sida nabi Aadam carro ayuu ka abuuray kadibna wuxuu ku yiri ahaw wuuna ahaaday waxaan fahmaynaa waxa weeye in Allah subhanahu wa ta'ala dabiici ahaanba uu dadka ka soo saaro hooyo iyo aabbo dhaxdood laakiin si aanu ogaana awoodda alle waxa uu abuuray qof aan aabba lahayn waana Ciise calayhi salaam tusaale kale oo mucjisada Allah ah alla wuxuu abuuray qof aan lahayn aabba iyo hooyo waa nabiyullaahi Aadam calayhi salaam balse sidaad ogtihiin waxa quraanka lagu sheegay in Allah uusan cunug lahayn sidoo kalena uusan xaas lahayn sida quraanku baleeyahay hadii Allah raxmaanka wiil u sugnaaday aniga ugu horeeyo kuwa caabudaya macnaha aayadu maahan in ilaah wiil leeyahay balse waxay leedahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu waxba dhalay maxaa yeelay wax dhalidu waa tilmaan hooseysa oo ay nooluhu leeyihiin waa arin u baahan in laba qof isku tagaan si arintaas loo xaqiijiyo isla sababkaas Allah wax ma dhalo Allah subhanahu wa ta'ala xaas ma baahna guurka iyo isku tagga waa arimo daruuri u ah in wax la dhalo waa arimo dadka ku saabsan sida darteed sida Allah ku sheegay quraanka hadii Allah raxmaanka u sugnaado wiil ana ugu horeeyo kuwa caabudaya taa wuxuu la jeedaa Allah inuusan wiilna lahayn sidoo kalena uusan xaas u baahnayn haddaba mabaadi'dan quraanka ku jira waxay dadka u cadeynaysaa inay waajib tahay in aan sharafka Allah subhanahu wa ta'ala la yareynin inaga oranayna Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wiil maxay Allah subhanahu wa ta'ala weyninkiisa wiil iyo xaas buu uma baahna wa aakhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin